Maayarka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi oo qaar kamid ah warfidiyeenada maanta kula hadlayay magaalada Gabiley ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay deeqa ay gudida COVID-19 ee Soomaaliland u qoondeysay gobolka Gabiley. Maayarka ayaa waxa uu sheegay in cadadka deeqda loo asteeyay gobolka Gabiley aanay ahayn mid anfacaysa isla markaasina meel kaga dhacaysa jiritaanka gobolnimada gobolka Gabiley iyo shacabka gobolkaasi. Maayarka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aanay cadaalad darrada u dulqaadan doonin gudida COVID-19 ee Soomaaliland ay uga fadhiyaan saamiga saxda ah ee gobolka Gabiley iyo wixii uu xaq u lahaa waa sida uu hadalka u dhigay. Maayarka oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri gobolkan Gabiley runtii waa gobol ballaaran oo ka kooban 6 degmo kamid ah gobolada ugu dadka badan jumhuriyadda Soomaaliland. Arrintan COVID-19 kuna gobolada ay sida gaarka u saameysay uu kamid yahay oo hadii aynu eegno marka gudaha laga yimaado dalkeena dibadda meelaha ugu badan ee laga soo galo waxa kamid ah Wajaale. Arrinta jaadka lafteedu culaysyada ugu waaweyn gobolada ku dhacaan baynu kamidnahay. Marka taa laga yimaado waxa socda saan horeba uga hadlay dadaalo loogu jiro sidii dadka ay duruufaha dhaqaale COVID-19 ku saameeyay loola tacaali lahaa. Waxa ka warqabteen inay Gabiley ahayd meeshii ugu horeysay ama dawladdu ugu horeysay ee dadka runtii duruufahooda la qaybsata. Mar walba waxaynu isu dhiganaa ila qaranka cidba kaalin bay kaga jirtaa wixii aynu qabsan karnaa inaynu qabsano. waxaan hadaba la iloobi karin kolba qaranka wixii u soo kordha xaq baanu u leenahay wixii noo qalma inaanu qaadano oo gobolku wixii u qalma marka loo eego population-ka gobolka ku nool inuu qaranka la qabo oo loo cadaalad sameeyo. saadaradeed waxa jirta in 30,000 oo qoys ayaa qaranka loo qaybiyay oo ay qaybinaysa hay'adda Notfor intaanay gudida heer qaran ku dhawaaqin raashinka iyagu gaar ugu tala galeen dadka danyarta. raashinka 30,000 oo qoys runtii gobolka Gabiley waxa loogu qoondiyay qoondaa 800 oo qoys. waxa ahayd waxaan population-kayga iyo gobolkayga midna aan cuntabin oo tirada dadkaygu mar walba ay ka badantay. kamaanaan hadalo waxa weeye waa duruufaha soo kordhay oo waxaanu isnidhi kolba sidii loo jabaa loo dhutiyaa qarankiina 800 ee ka hesheen u qaybiya. saad ka warqabteen caasimadda gobolka Gabiley laguma qaybin iyo magaalada kala baydhba. waxaanu kaliya ku filaysiinay 5 degmo 4 degmo oo kamid ah gobolka oo numid 2 qoys 200 oo qoys u siinay. runtii waxa tii nagaga daran oo hadda naga soo gaaray gudida heer qaran COVID-19 in raashinkii 60,000 oo qoys ahaa oo imika 39,000 oo qoys raashinkooda ay diyaar yihiin in gobolka Gabiley loogu qoondiyay raashin 2,000. runtii arrinta waxaan u aragnaa arrin Dulqaadka oo aan gobolkan qaban markaan waxba lahayn duwa alxamdulillah iyo waxba la soo canaanan maayo. laakiin 39,000 oo qoys marka gobolada Soomaaliland loo qaybinayo ee gobolka Gabiley la og yahay population-kiisa la leeyahay 2,000 oo qoys baanu siinana. runtii arrinta halkii hore Notfor ay marisay baanu u aragnaa in la mariyay. waxaan u aragnaa waxaan qaadan karin anigoo ku hadlaya afka shacabka reer Gabiley gudida COVID-19 waxaan u sheegayaa inaanan diyaar u ahayn in 2,000 oo qoys raashinkaanu dadkaygu u qaadno oo aanay u cuntamin nanana qaban gobol ahaan. Gabiley waa gobol oo aynu ognahay oo baarlamaanku mu sharciyeyn laakiin goboladii dambe gobolka ugu weyn ugu tirada badan baynu nahay. waxaan ka tiro badan nahay goboladii hore qaar kamid ah. Gabiley ma qabato in maalinta qaranka dhibaato iyo hawl ku soo korodhana gobol la yiraahdo maalinta wax la qaybsanayna aanu tuulo noqono runtii wax la qabto ma aha. marka runtii gobol ahaan baa laynoo xisaabinayay. marka dhibaato ama culays qaranka ku soo kordhona inaanu gobol noqono maalinta wax la qaybinayo ee barwaaqo iyo wanaagumada u soo kordhaan inaanu tuulo noqono nama wada qabato. marka waxaan leenahay waxa cadaaladda ha la ilaaliyo shacabka reer Gabileyna runtii qarankooda
in badan bay u dulqaataan oo aanu dawladnimo jacaylka iyo dad jacaylkaba runtii waxyaalo fara badan uga tanaasulaa dayaanay taasi u muuqan doqoniimo qaranka waxa weeye runtii dawaa la wada leeyahay wixii imaadaana wuxuu u baahan yahay oo u baahannahay inaan waxaanu xaq ku leenahay ka helno guddiga waxaan leeyahay arrintaa idinkama aqbalano annaga iyo shacabkayaga midna dee waa inay isu noqotaan waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley